وأرور هراء وحن سوغاري هويغا لبنا محمد ديق يوسف أو سيدا دارك إيسان صندوق دان كل حتى على وضدا. السلام عليكم. محمد ديق إيور في عنته حالك ورا عفاتك. markaana waxa gudaha u soo galnay hooyiga sandaqada Maxamed Deeq Yuusuf Maxamed oo markaasi 26 jira inta badan xanuunkan ayuu waqtigiisa markaasi ku soo qaatay neerfaha ayaa laga hayaa wuxuu ahaa neerbuuna ahaa anaga muu awoodi lacag aan ku daaweeyo oo dibadda iska daa dalka dibadda waxa uu heli karo dalka waxa uu heli karo waxaan cunuga iskanka cunuga ku qorto waa masaakiin waxba uma heli karo hooyadiisa aan wuxuu kama jeclaysan laakiin awoodda ay celiso Maxamed Deeq في عنده حالة كورن حنون كذا كورن أنت كحنونة كركب كحنونة إنه مساكين هو قور معيشة كريو قعمة معيشة كريو لواها إبرو كيهاي قورتنا معيشة كريو من هل ذكري هذا الكلام اللي بيكون هاي أنت السنة أجري لحي لا السنة أجري أنت سوف ليها خطير بدن أو عاصمة متشلوجي وحالوش هو يدي in markaasi gudaha dalkan waxba looga qaban karin xaaladiisa isla markaasina ay tahay in dalka dibadiisa loo qaado qoys markaasi dan yar oo ka dhashay hadda ma aha kuwa awooda in markaasi dibadda ay u qaadaan si xaaladiisa caafimaad halka lagu soo daweeyo taqaadirta isbitaalka oo u geynay wadanka wax looga maqar ka dibadda ma dal wax looga maqarana ma awoodi dalka hataa wax uma awoodi hataa dibadda iska daay nolosha qoyskii waa iska alyonaas kanaan wax hada awoodna ku daawi karana ma haysto Maxamed Deeq masaajidka ka warma inta ya goorma aada lix saaca aadamiya shanta salaadood Maxamed Deeq waxa uu jecel yahay inuu mar walba ku dukado masjid uu daris leeyahay haddana uma suurtagelayso xaaladda uu ku jira awgeeda oo mararka qaar dadka dariska ayaa inoola sheegay in markaasi duhurada iyo casirkii oo kale ay gaari ku riixaan oo markaasi ay ku geeyaan ugu dambeyn waxaan codsanayaa dadka dalka dibadda joogo ummadda Soomaaliyeed meel kasta meel alaale meeshay joogto waxaan u baahanahay cunuga miskiinka inay soo caawiyaan dal iyo dibad dawladda Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed wixii dalka joogo wixii dibad joogo waxaan jecelnahay miskiinka inay soo caawiyaan si gaar ahaan ra'iisul wasaaraha madaxweynaha kulli waxaan jecelnahay in miskiinkan ay soo caawiyaan waxba u haysto ma jiraan saas uu dhibaataysan fadlan walaal haddii aad doonaysid in aad markaasi soo caawiso dhibara Maxamed Deeq waxaad markaasi ka soo wici kartaa ama kala soo xiriiri kartaa telefoon numberka hooyadii maama Khadiija ee markaasi inoo sheegayso waxaan laga soo xiriiri karaa wiilkan miskiinka qofka caawihayo numberka furaha 5 eber 7 1984 oo wata hooyadiisana haysto numberkaas Khadiija Xasan Maxamed Deeq dhowr iyo 20 sano ayuu cudurkan neerfaha markaasi la nool yahay qoyskiisu ma awoodaan in xaaladiisa caafimaad ay dalka dibadiisa ay u qaadaan dhaqaatiirtana dalka inaan waxba looga qaban karin ay u sheegan meel kastoo ay joogtaan iscaawiya Soomaaliyeed Abdulqaadir Cumar Cabdulla Fiidka magaalada caasimadda ah ee Muqdisho Soomaaliya